goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan sidoo warkan ku faahfaahinaya wariyaheena Cabdishakuur Maxamed Xasan Soola oo naga soo diray magaalada Beledweyne. wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayadoo wafdigu uu ku weelinayay socdaalkiisa xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle. wafdigu uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa ee magaalada Beledweyne waxa ku soo dhaweeyay maamulka heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne. soo dhaweyn kadib ayaa wafdigu uu hogaaminayay madaxweynaha waxa loo soo gulbiyay xarunta maamulka gobolka Hiiraan ayadoo halkaasi uu warbaahinta kula hadlay madaxweynaha waxaan ugu horeynta hadalka qaatay qaar ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan uu ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Beledweyne iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan waxaana dhamaantood ay tilmaaneen inay soo dhaweynayaan imaanshaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo markii labaad yimaaday magaalada Beledweyne. maanta magaalada Beledweyne soo gaaray madaxweynaha Hirshabelle mudane Cabdullaahi Cusuble waxaan soo dhaweynaynaa salaam deegan gaari kar maanta madaxweynaha ugu horeeyo maaragtay on anaga maaragtay nagaaga dhow runtii aan ugu faraxsanahay waana markii ugu horeysay maamulana madaxweynaha aan halkan ku soo dhaweeyay madaxweynaha waa soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya soo dhaweeyay laakiin khudbad inaan qabto oo maaragtay madaxweynaha aan leeyahay waa nasiibkiis maaragtay madaxweynaha ugu horeeyay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle. salaan kadib mudane madaxweyne ku soo dhawow welcome gurigaagii caasimadaadii labaad ilaa anaga waxaan shiisanaa markaan eegnay haddaan nahay reer Hiiraan waxaa jira waxa la yiraahdo buuxa dadweynaha madaxweyne wuxuu sheegayaa caasimada siyaasadda waa Jowhar laakiin caasimada ganacsigu waa Beledweyne buuxa dadweynaha marka ku soo dhawow waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan. sidoo kale halkaas waxaa ka hadlay xildhibaan Goodax Barre oo ka mid ah wafdigu uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle. anigu waxaan ka mid ahay wafdiga madaxweynaha safarro badan oo shaqana waa hadii la yiraahdo waa leedii ku imaan doonaa laakiin anigu matalayo xildhibaanada guud ahaan Hirshabelle laga soo doortay iyo gaar ahaan kuwa reer Hiiraan waxaan jeclahay inaan salaan idin soo gudbiyo salaanta kadib waxaad ogaan doontiin in safarro badan oo shaqo halkaan ku imaan doono. ugu dambeyntii halkaas waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Cusuble asigoona tilmaamay in waxyaabaha uu yimaaday magaalada Beledweyne ay ka mid tahay kala warqaadida shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne iyo waliba sidoo kale sidii wax ugu qaban lahaa abaaraha ka taagan qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan. maanta soo gaaray halkan waxa igu soo dhaliyay inaan idin maadana waxa waaye hadda in aan kala warqaado inaan iswaraysan runtii xaalada culus ayaa dalka jira guud ahaan gaar ahaan deegaankana haddana xaalado deegaanka ah ayaa runtii la soo gudbo oo dul saaran oo ay ka mid yihiin abaaraha culus oo ay ka mid yihiin waxa ahaa dadka ayaguna barakacayaasha ah ee waxa ahaa weliba adinka haddana waxa ahaa agtiina nolosha ka soo raadiyay ha noqoto arrimaha colaado iyo isku dhacyo soo noqnoqday ha noqoto waxa ahaa bal maamulka cusub ee hadda waxa ahaa ee gobolka iyo waxyaabaha uu runtii tabayo in aan si dhab ah uga wada hadalno. Cabdishakuur Maxamed Xasan waa Bari TV Beledweyne.